maanta waxay ahayd maalintii koobaad ee cashuurta gadistu ay dhaqan galaysay si habsami leh ayay guud ahaan u dhaqan gashay waxaan aad iyo aad ugu bogaadinaynaa dadka Soomaaliyeed ee cashuurta bixiyay iyo ganacsatada fududeeyay in cashuurta la qaado aad iyo aad baan u bogaadinaynaa war degdega shirkii xasaasiga ahaa ee ka socday dekedda magaalada Muqdisho ayaa laga soo saaray war u laab qaboojinaya ganacsatada sidoo kale tan ka farxinaya oo run ahaantiina dul istaagaya qodobadii ay xali ka hor sheegeen madaxdii ay la kulmeen ganacsatadii gadoodsaneed kow waxa lagu heshiiyay inta muuqaalka wasiirka wasaaradda maaliyadda idin sii deenin saddex qodob oo waaweyn oo ganacsataduna ay aad carabka ugu adkeenayeen waa kow in laga qaado dhammaan barihii ay ka cabanayeen ganacsatada ee ay sheegeen in lacagaha looga qaado gudaha dekedda aad uga cawdeen jidgooyooyin ayaa yaalay yiraahdeen oo ay ugu badan yihiin meelo lacagaha looga qaado oo aan ahayn hal kaliya dhowr xabo waa laga wareejiyay waana la ansixiyay labo waxa kale oo la isla gartay in loo fududeeyo galista dekedda oo markii hore ay dhibaato kala kulmi jireen sida ay sheegeen ganacsatada qodobka saddexaad ee iyaduna shirkii xasaasiga ahaa ee dhacay lisla qaatay lisla fahmay oo la yiri waa in ganacsatada laga dul qaadaa dhibaatadaas waxa kale oo kamid ah gawaarida ka baxda dekedda in meel kale aan lagu cashuurin oo gudaha magaalada aan ahayn lacaga badan loogu qaadi jiray dekedda markay ka soo baxayaan sidoo kale markay sii socdaan lacaga dhaxda wax baa looga qaadanayay in mar kale lagu canshuurin gudaha magaalada ama aanan lacaga looga qaadin heshiis lagu gaaray dekedda one time magaalada xora u taa meesha artay ka mari kartaa inta lagaaga soo boodi askarigaana soo baxay ma jirto go'aankan wasiirka ayaa sidoo kale ee warbaahinta la hadlay waana kan isaga oo sharxaya bal wixii ay ku hadleen isaga iyo rag kale ee dawladda ahaa ee meesha wada joogay waxaan u joognaa dekedda waxaad arkaysaan mas'uuliyiintii dawladda ee hawlahan haday tahay dakhliga iyo amniga iyo maamulka dekeddaba qaabilsanaa oo dhan ayaa halkan jooga waxaan naga tagay taliyihii nabad sugidda oo isna shaqada qayb nagala ahaa waxay ka qayb tahay shaqada maanta aan dekedda ka wadnay hawlihii lagu ballamay ee ganacsatada lagula ballamay ee ahayd in la xoojiyo la hagaajiyo hufnaanta iyo daahfurnaanta hawlaha maaraynta maaliyadda iyo maamulka ee arrimaha dekedda iyo dakhliga la xidhiidha culaysyadii ay ka cawdeen ama soo gudbiyeen ganacsatada Soomaaliyeed sidii loo furdaamin lahaa ayaa qaybtii koobaad maanta in la dhaqan geliyo oo la suuliyo aan halkan u nimi runtiina si aad iyo u qurux badan ayay noogu dhamaatay waxyaalaha ugu muhiimsan ee ganacsatada ka cawdeen ee culayska ku haya runtii habsami socodka shaqada dekedda ayaa la iska warsaday guud ahaan la isla eegay si loo turxaan bixiyo looga saaro wax kasta oo keenaya culays shaqo iyo mid dhaqaale labadaba oo ka baxsan hanaanka maaliyadda guud ee dalka waxa kow ka arrimaha la xidhiidhay iyo culaysyada ka dhasha container jabinta oo culaysyo iyo cabashooyin ay ka yimaadeen oo sidii loo xallin lahaa meel la isla dhigay had maanta laga bilaabana aanay ka imanahayn wax culaysyadii dhaqaale ee halkaas lagu tuhusanaana dhammaantood meesha laga saaray waxaan jeclahay inaan tilmaamo inay yihiin waxyaalaha laga cawday waxyaalo guun ah oo muddo dheer soo jiray oo aan ahayn wax shalay iyo sanad iyo 2 sano jiray culaysyo 10 sano iyo 15 sano soo jiray weeye laakiin dawladdu waxay garawsatay inay ganacsatada culays ku yihiin in la qaado wixii container jabina albayrak oo shirkadda iyo maamulka dekedda iyo customka oo qaabilsan arrimaha maaliyadda ayaa u xil saaran kana shaqaynaya inay shaqada qabtaan ciidamada kala duwan ee bilayska iyo nabad sugidduna arrimahooda amni bay ka gudanayaan qof baa maqan ee waxa loo xanibo meesha waa ka saarna waxa yana muhiima oo cabashada ku jirtay ganacsatada inay ka cabanayeen soo galidda dekedda iyo qiimaha lagu soo galo ama aydiyada lagu daabaco oo iyadana si fiican markaanu maamulka dekedda la tashanay la shirnay la isla afgartay lana xalliyay faahfaahinteedana ay bixin doonaan maamulka dekeddu iyadana waa war runtii fiican dadkana bari laga bilaabo warkaasi ganacsatada waa lala wadaagi doonaa iyo dadka dekedda ka shaqeeya oo dhan waxa kale oo yana muhiima
culaysyo kale oo fara badan oo maamulka dekedda la xidhiidha iyo customiska oo shaqooyin kale oo qaab sidii loo fududayn lahaa hawlaha shaqada meel la isugu geyn lahaa hawlahooda oo shaqadooda socoto iyaguna dhowaan insha Allah hirgeli doona si loogu fududeeyo dadka dekedda ka adeeganaya in si fudud oo maxaan ku idhaahdaa aad u hawl yar oo waqtiga ugu hawsha yar ay hawluhu ugu dhammaadaan hawlo maamul weeye iyagana shaqadooda waa soo gabagaboobi doontaa culaysyada kale ee cashuurta la xidhiidhay waxaa ka mid ah ee laga soo cawday lacagaha laga qaado dadka ganacsatada ah ee gawaarida rarta ee raba inay alaabtooda magaalada kala baxaan ama ha ka baxaan ex control balcad ama ex control afgooye oo iyagana lacag laga qaadi jiray lacagtaasna waa la kansalay waa la joojiyey lacag ma bixinayaan gawaarida ka bixi doona kontarooladaas dawladdu wax lacaga oo ay ka qaadi doontaa ma jiraan marka maanta wejigii koobaad arrimaha culaysyada ganacsatada haystay iyo culaysyadaasoo runtiina dee dadka Soomaaliyeed ku dhacaya kama dambaysta wejigoodii koobaad baan furdaaminay wejiyada kale ee ganacsatadu ay ka soo cawdeen si dhaqso berri iyo wixii ka dambeeya ayaa iyana qaraaro dawladeed ka soo bixi doonaan maalin walba wixii aan xalino dadka waa la wadaagaynaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa in dadka Soomaaliyeed dawladooda garab istaagaan ganacsataduna ay fududeeyaan sida cashuuraha loo bixinayo dawladda la garab istaago aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.